shirka isku xirka hay'adaha ku lug leh dowladaha hoose iyo xasilinta Koonfur Galbeed oo maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed waxaana ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo wakiilo ka socday hay'adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta shirkantii u socday waxaa looga hadlay waxyaabihii u qadsoomay hay'adaha ka shaqeeya dowladaha hoose iyo xasilinta ugu horreyn waxaa goobta shirka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo sheegay inuu soo dhaweynayo barnaamijkani kuwa xoog leh oo tayadooda ay sareyso oo ka shaqeyn karaan xasilinta deegaanadoodii iyo sidii horumarin lahaayeen deegaanadoodii ay ka shaqeyn karaan marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rajeynaynaa inuu shirkan noo noqon doono mid miro dhala oo mirihiisana ay laga dareemi doono deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed guud ahaanteeda waqtiga oo aad iyo aad u gaaban ha ahaado maanta anaga kulli campaign iyo doorasho xaalada ayadoo lagu jiro ayaa haddana waxaa la yiri taas kaliya kama fikirayni Nadiifo Haaji Armiya wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed oo shirka ka hadashay waxay sheegtay in barnaamijkan muhiim u yahay bulshada ku nool gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina ka wasaaradda ahaan ay soo dhaweynayaan anan waana tus wasaaradda haweenka ee Tekroskati naamilbin kureebanayna saas oo kale ana tus mas'aasheega doorkiyo kulahaada koran haweenka markii la ku hadalo dowladaha hoose iyo xasilinta dareen korta markii la yara dhibaato waliba number 1 saameyntiga haweenka iyo caruurta iyo waayeelka marka maadaama saasiyada haddana madii la ku hadalo development iyo xasilin iyo barnaamijyadaas haddana dareen kortan kaalin mugleemasa kaalinta ee ka qaado koran shirkan oo muddo maalmaha ka socon doona magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gabagabadii waxaa si toos ah u furay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi mashruucaas oo qayb badan lahay qaybaha haweenka qaybaha dhalinyarada yani bulshada qaybaheeda kala duwan ah ilaa marka dambe ay sababtay in la dhiso golad deegaan laba degmo oo kamid ah degmooyinka 18 ee Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii barnaamijkan waxaa qayb weyn ka qaatay markeeda hore inkastoo hadda xoogaa yar oo ay waxa uun yar jiraan dowladda federaalka ayaa runtii gacan ka geysanaysay oo isku xirnaan wasaaradda arrimaha gudaha aan si runtii si wanaagsan isku xirnaan wada shaqeyn badan naga dhaxaysay waxyaabaha Soomaaliduna wada hadal doonta dhimalahana waxyaabaha jiran waa labayn doonaa duleerada waxaan rajaynaynaa inay meeshii ay ka sii wada laga sii wada doono maadaama laga shaqeynayo wax laga shaqeynayo yihiin horumarinta bulshada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay kolley wax jiro oo la halin doonaa marka waxaa sharaf weyn ii ah in shirkan oo muddo hakad ku jiray inaan maartay maanta aan ka furo Baydhabo